kooxda Barcelona oo masiibo hor la ay soo wajihi doonto haddii Neymar ay la soo wareegto maxay tahay dhibaatada soo wajahaysa kooxda Barcelona barnaamijkan ku qaada dhigi doona sidoo kale ma ogtahay in maanta oo kale 8 sano ka hor wax lama arag iyo lama maqal ah uu ku qabsaday maslaxadda riyada ee Old Trafford kooxda Arsenal sidoo kale barnaamijkan waxaan ku qaada dhigi doona abaalmarinta laacibka ugu wanaagsan Europe oo la bixin doona habeen dambe waxaana ku wada dagaalami doona Van Dijk, Cristiano Ronaldo iyo waliba Lionel Messi bal yaa mudan aragtidaada noogu reeb xagga commentiga ugu horeyn haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe dhaho channelkeena adigoo riixaya calaamada gambaleelka hana naga iloobin inaad like saarto muuqaalkan mahadsanid halkani waa Toleto channel ugu horeyn aynu ku hormarnay maanta oo kale 8 sano ka hor waxay ahayd maalin si xun loogu jajabsaday maslaxadda riyada ee Old Trafford kooxda Arsenal oo marti ku noqotay shabaqadeedana loogu fatahay sidii webi jiinka soo jabsaday oo kale wixii ku dhacay waqtigaasina ilaa iyo haatan jamaahiirta Arsenal qasatan kuwa xusuustooda ay wacan tahay waxay u gashay diiwaanka madow oo maxaa yeelay United ayaa ku jajabsatay ilaa iyo 8 gool iyo 2 waliba United in ay la hesho shabaqadii Arsenal goolkii ugu horeeyay waxay ku qaadatay kaliya 22 daqiiqo xilli uu la helay joogdheerihii dhawaan ay iska eriyeen ee Danny Welbeck Arsenal hesitated, Welbeck didn't. halkaasina waxaaba lagu ogaaday in goolkii wardiyaha uu ka ahaa gool hayasasni uu yahay sida doonta u toogo oo saddex ka mid ah goolasha United waxay ka yimideen Wayne Rooney oo ahaa gool magafe markasta uu arko kooxda Arsenal xilli xaq iyo xaquuq u yeeshay in Bononiga kilkisha uu ku qaato maadaama uu dhaliyay goolasha loo yaqaano saddexleyda For Manchester United for Wayne Rooney. And that landmark goal perfectly struck. sidoo kale laba kamida goolashaasi waxay ka yimideen Ashley Young oo si cajaa'ib leh labada goolba kaga gadaal mariyay gool hayasasney Young, it's 8. And he scored 2 absolute beauties. daqiiqadii 67 waxa uu piisay Lewis Nani Rooney's on a hat-trick. Nani can clip it in. It is 5-1 to Manchester United. halka uu soo qatimay shabaqadii kooxda Arsenal Joseph Park They're looking for number 6 here, and Park has got it. It equals the mark of 10 years. labada gool oo ay dhalisay kooxda Arsenal ayaana ahaa midka koobaad mid yimid dabayaaqadka qaybta koobaad ee ciyaarta xilli labadii tafood ee goolhaya David De Gea Benoni cajaa'ib leh uu ka dhex dusiyay orodheerihii reer England iyo kooxda Arsenal ee Theo Walcott Here comes Theo Walcott with a chance for Arsenal's first Premier League goal of the season, and he's got it, and it's 3-1 in injury time before half-time. halka goolka kalena uu si wacan u dhaliyay Robin van Persie oo ahaa mid kamida goolaliyaasha ugu wanaagsan waqtigaasi horyaalka Premier League dalka Ingiriiska haatanna soo qatimay xirfadiisii kubadda cagta A chance for Robin van Persie, which he knocks in, and it's 6-2. Well, he was able to stay in there because Phil Jones had ended up on the line. wixii ka dhacay Old Traffordna waxay ahaayeen wax lama iloobaan ah in Arsenal oo ahayd koox weyn isla markaana hoggaanka uu hayay macallin Arsene Wenger ay kaga badiso Manchester United ilaa iyo 8 gool iyo 2 waana wax lama arag iyo lama maqal ka ah ilaa iyo haatan saaxadda horyaalka Premier League dalka Ingiriiska oo ah midka ugu xamaasada badan qaaradda Yurub dhinaca kale dhibaato weyn ayaa albaabka u soo garaacaysa waqti xaadirka kan kooxda Barcelona haddii ay la soo saxiixato Neymar Jr oo haatan rajadiisa ay u muuqato mid ku sii dhawaanaya in uu ka mid noqdo kooxda ka dhisan gobolka Catalonia iyo waliba magaalada Barcelona qaasatan garoonkii Camp Nou oo ana ka mid ah kooxaha ugu awooda badan ee qaaradda Yurub dhibaatadaasi oo noqonaysa
mid soo wajahaysa siiba macalimka lagu magacaabo Ernesto Valverde oo jahwareer ay ku noqon doonto sidii uu kala xulan lahaa ciyaartooydiisa. halkaasi waxaa ku kulmi doona wadar ciyaartooy oo wada cajaa'ib leh sida Ousmane Dembélé oo lagu daray لاعبka reer France ee Antonio Griezmann, raacso mucjisadii reer Argentina ee Lionel Messi iyo Luis Suarez. talow sidee loo adeegsan doonaa waa musiibo xoogan oo soo wajihi doonta kooxda Barcelona iyo sidoo kale macalimkooda Ernesto Valverde oo halkaasi jahwareer badan ayaa ka dhici doona. heshiiska Neymar uu dib ugu soo laabanayo garoonka Camp Nou ayaa haatan wuxuu u muuqdaa mid gabi ahaanba la isku fahmay, wuxuuna ku kacayaa aduun lacageed gaaraya 170 milyan oo euro oo kooxda Paris Saint-Germain ay ka qaadan doonto Barcelona ayaana rajaynaysa in lacagtaasi ay ku bixiso ilaa iyo 2 sano oo kala duwan oo haatan waxay sii doontaa ilaa iyo 85 milyan. sidoo kale 85 milyan ayay bixin doonaan dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaana lacagta dambe bixin doona madaxweynaha soo socda ee kooxda Barcelona, maadaama madaxweynaha haatan ee kooxda Barcelona Josep Mario Bartomeu uu gabi ahaanba mar kale isku soo sharaxi karin in uu noqdo madaxweynenimada ee kooxda reer Catalonia ee Barcelona. Neymar ayaa ka tagay kooxda si uu horumar waayihiisa u gaaro isla markaana uu uga baxo hooskii mucjisada reer Argentina ee Lionel Andres Leo Messi, laakiin waxaa dhacday in gabi ahaanba uu fadeexa dhex fadhiisto laacibkii reer Brazil ee ka midka ahaa saddexda ciyaartooy ee ugu wanaagsan, waana dugmatay xirfadiisa halkii uu u ordayay in uu badbaadiyo farsamooyinkiisa qaaska ah ee kubadda cagta. hogaamiyanimo waa uu ku soo bixi waayay Neymar waqti xaadirka kanna wuxuu diyaar u yahay in uu dib ugu soo laabto kooxda Barcelona gabi ahaanba waxay u muuqataa mid la meel dhigtay wax waliba oo ay doonaysay kooxda PSG oo ku qotamay in ay helaan Neymar Jr. markii uu ka tagayay Neymar kooxda Barcelona waxa uu ordayay mushaar waali ah isagoo Barcelona ka qaadanayay 22 milyan oo euro sanadkii. markuu ku biiray PSG mushaarkiisa waxa uu noqday ilaa iyo 37 milyan oo euro. sidaasi darteed waxay u muuqataa in ay noqon doonto mid kale oo qariib ah in hoos uu u dhigo Neymar mushaarka uu ka qaadanayo kooxda Barcelona ee ka dhisan gobolka Catalonia. xitaa haddii sidaasi ay sameeyaan oo mushaarkiisa ay ka dhigaan ilaa iyo 30 milyan oo euro sanadkii, waxay taasi la micno noqonaysaa in 60 milyan oo euro Barcelona ay bixinayso mushaar ahaantiisa sanadka. 30 milyan isaga ayaa qaadan doona, 30 milyanna waxaa la siin doonaa waaxda dhaqaalaha ee horyaalka La Liga Spain oo mushaarka sanadlaha ah ciyaartooyda ka qaada 100% oo xaaladda Barcelona cirka ayay isku sii toli doontaa. qandaraaska 5 sanadood ayaa waxay wadar ahaan mushaarkiisa noqonaysa ilaa iyo 300 milyan oo euro oo lagu daray 170 milyan oo ay ku soo iibsanayaan, taasi oo wadar ahaan ka dhigaysa ilaa iyo 470 milyan oo euro. waxaad ku sii dartaa lacagaha dalaalnimada isla markaana ay bixin doonto kooxda Barcelona si lamida markii Barcelona ay la soo wareegaysay Neymar isla markaana ay ka soo qaadanaysay kooxda Santos ee ka dhisan cariga Brazil. waxaana wadar ahaan qiimaha lacageed uu isku fadhiisan doonaa ee Neymar aduun lacageed gaaraya 500 milyan oo euro, waana howlgal aad u weyn siiba markii la fiiriyo qorshaha Barcelona ay ku doonayso dib u soo celinta Neymar. howlgalka Barcelona wuxuu noqonayaa mid aad u adkaanaya maadaama dhawaan ay qirteen in aysan haysan wax lacaga oo ay ku soo iibsadaan laacibka lagu magacaabo Junior Firpo kaasi oo ay kala soo wareegeen Real Betis, waxaana waajib ku noqotay in iyaga ay iska iibiyaan Malcom ka gadalna lacagtiisa ay ka soo bixiyaan laacibka lagu magacaabo Junior Firpo. waxaana intaasi sii dheer in 80 milyan oo euro ay ku bixin karto saxiixa Antonio Griezmann haddii kooxda Atletico Madrid ay kaga guulaysato dacwada waqti xaadirka kan ay ku jirto. idaacad laga leeyahay gobolka Catalonia iyadana waxay tilmaamaysaa in waqti xaadirka kan kooxda Barcelona deen ay u galayso sidii ay ku soo xirigelin lahayd laacibka reer Brazil ee Neymar Jr. waxaadna ku darsataa in 30 Juun 2018 kooxda Barcelona lagu lahaa deen muddo dheer ah oo gaaraysa ilaa iyo 189 milyan oo euro iyo 492 milyan oo euro oo deen gaaban ah, taasi oo la micno ah in ay sii laba jibaarmi doonto
waxda deymaha ee kooxda Barcelona ay deynta u doonato xisaabtooda oo maxaa yeelay qiimaha ayaa cirka isku talaya oo gaaraya ilaa iyo 500 milyan oo euro haddii Neymar dib ay u soo celinayaan oo xaaladuna dhinac kasta waxay noqon doontaa mid iska allow sahal ah oo aanan wacnayn ugu dambaytiina habeen dambe waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqi doonaa xidiga ugu wanaagsan qaaradda Yurub oo waxaa si toos ah ugu dagaalami doona saddexda laacib ee kala ah Virgil van Dijk oo Liverpool ku hogaamiyay ku guuleysiga Champions League iyo sidoo kale laacibka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo si lamida mucjisadii reer Argentina ee Lionel Andres Leo Messi habeen dambe ayaana si rasmi ah loogu dhawaaqi doonaa xidiga noqon doona laacibka ugu wanaagsan qaaradda Yurub guud ahaan barnaamijkani ciyaaraha uu idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Tolman saaxiibayaal caawa inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa inta aan ku kulmi doono barnaamijka xiga